وسؤال ku saabsan Soomaaliya iyo Somaliland in badan oo muddo ah ayaa hadda la soo daba joogay shirarkii idin socday Somaliland xagee marayaan maxaa rajo oo socda maxaad isku haysaan maxaa imika miiska idin saaran maxaa rajadu tahay in la isku soo noqdo ama la kala go'o oo suuqa la kala galo Cabdiraxmaan horta waxaan rabaa inaan ku sheego dalkan dhibaato xoog leh ka dhacday dhibaatadaasi laba isugu jirtay mid dawlad qaran oo dalka ka jirtay ay geysatay iyo mid dagaaladii sokeeyay ay geysteen dhibaatada Somaliland ama waqooyiga Soomaaliya dhibaato dawladii bariga dalka ka jirtay ay geysatay waa dhibaato aad iyo aad u xanuun badan waaye dad badan oo Soomaaliyeed ayaa lacagtii cashuurta ee laga qaaday qalabkii lagu iibiyay lagu dilay si aad u dhib badan waliba xanuun badan arrin xanuun la waaye dabcan dalkoo dhanna dhibaatadaas way ka dhacday laakiin waa loo sii kala badnaa gobollada waqooyi dhibaatadu aad uga badnayd wixii dhacay markaan soo xasuusanno wayna gubay waanan ka xunnahay waana aad iyo aadaan u murugoonaynaa dhowr mar horena waa iri waana ku celinayaa waa arrin xanuun badan ay ahayday dawladdii berigaa joogtaana samaysay maanta dawladda joogta anaa madax ka ah magaca dawladnimadana aad iyo aad ayaan arrintaas uga xunnahay mana rajaynayno Soomaaliya inay dib ugu soo noqoto dawlad dambe oo waxaasoo kale ay ka suuroobaan wax kastoo yimaadaba cudurdaar looma heli karo saxna ma in dadka in lagu laayo xanuunkaas dhacay wuxuu u baahan yahay waqti dheer oo biskoosho ah oo soo biskoodo u baahan yahay waxa socotaana waa biskoodi Somaliland hadda waa meel nabada horumar badan ka jira dadaalo badan socda annaguna duruufo gaar ah ku jirnay hadda koonfurta waa ka soo baxayna wada hadalku waa bilowday waxaan qabaa in la wada hadlayo sideeda horumarkii ka mid tahay la gaaray aad iyo aad ayaan rajo badan u qabaa in guul la gaarayo laakiin ma degdegsiinyo Soomaalidu koonfurta joogto xukuumadda geedkii roor lagu karo roora looga soo dagaay inaan degdegnimo doonayno midnimada in la soo celiyaan rabnaa ma ka tanaasulin mana ka tanaasuleyno laakiin waxaan rabnaa in loo soo celiyo si raali la isaga wada yahay oo mar dambana aan ku dhumi karin marka qadiyadda Somaliland way taagan tahay waan daba soconnaa wali kamaanan quusan mana la kala tagaayo in la ismac salaameeyo wax la yiraahay ma jiraan in la wada jiraa jirto oo si la is rabo ayadoo la is rabo la wada jiro in la isjujuubo